dowladda Turkiga ayaa ciidamadii cirka Soomaaliya u soo xirtay tababarkoodii waxaana ciidamadu ay tiraahan gaarayaan 5700 oo askari oo wata dhammaan hub u dhameystiran dhan kasta sidoo kale dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya waxa ay siinaysaa taageero dhanka difaaca cirka ah oo isugu jira diyaarado dagaal iyo kuwa waxbasaasa oo waardiye xuduudaha dalka madaxweynaha Turkiga Erdogan oo qadka teleefanka kula hadlayay dhigiisa Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u sheegay inuusan ahayn kaligiis isla markaana uu haysto walaal buuxa oo ka caawiya dhan walba oo markaasi Soomaaliya u baahan tahay isagoo madaxweynaha dalka Farmaajo uu socdaal ku tagi doono dalka Turkiga soo la soo wareega diyaaradahaasi ee ciidanka ay dowladda Turkiga u tababartay Soomaaliya inay hawadeeda ku difaacato diyaaradahaasi dagaalka ayaa gaaraya 18 toddoba kamid ah yihiin miigaga halka 3 kamid ah yihiin diyaaradaha xamuulka qaada ee militariga loogu talagalay iyo 8 helicopter waxaana meesha ka marneen in hubkan iyo ciidamada Soomaalida ah ee tababarkii ugu dambeeyay la siiyay ee Turkiga Soomaaliya uu si walaaltinimaha ugu talagalay dhanka kale Turkiga waxa uu Soomaaliya deemiyay 5 diyaaradood oo ah kuwa dawladaha hormare ee ku dagaalgalaan isla markaana hawada ay ku difaacdaan diyaaradahan oo madalkoodu yahay T-50TX oo nooca Turkigu sameeya ah ayaa qiimahooda gaaraya 1.2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo markii Soomaaliya cagaheeda ay ku soo istaagto looga fadhiyo inay iska bixido haddii ay Soomaaliya la timaado T-50TX oo ah diyaaradihii ugu dambeeyay ee casrigan loo isticmaalo hawada in lagu difaaco oo ah diyaarado joog sare oo wax ka dila isla markaana qaada madaafiicda ridada dheer oo ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay tilaab military ka qaadi doonto diyaaradii ku soo xadgudubta hawadeeda sidoo kale noqonaysa wadanka kaliya ee ugu awoodda badan dhanka cirka markii loo eego wadamadan dhaca Sub-Sahara Africa ugu dambeyn Turkigu sheegay inuu wado tababarka ciidanka badda Soomaaliya oo 6 bil ka hor uu Turkigu bilaabay isku dubaridkooda waxaana ayagana la filayaa in tababarkooda soo dhamaado dhawaan wixii arintaasi ka soo cusboonaada isha ku haya dhageystayaal idaacadda wadanka